face lotion weeyaan kambaniga Estee Lauder ayaa sameeya muxuu u fiican yahay waxtarkiisu muxuu yahay macluumaad ku saabsan creamka cidii aan aqoonin oo wajiga loogu talagalay ayaa maanta idin la wadaagaya insha Allah haddaan idinka siiro hordhaco dadka wajiga qalalan iyo dhaxamaha soo socda soo diyaar garooba Assalamu alaikum, welcome to Aziz TV show. Dhamaan soo dhawaada. Maanta waxaan insha Allah idin la wadaagay macluumaad ku saabsan creamka ama lotionka. Xaqiiqatan waa lotion, cream lama oranayo. Creamku waa wax halaalo wixii culus ee markaad qaadanayso culus. Wixii dareere ah ee jilicsan ee dhaashi gelaya waa lotion, okay? Marka dadku badanaa waxay u yaqaaneen lotionka ka jirka la mariyo. Guys, kan waxa weeye waa face lotion waxa sameeya kambaniga Estee Lauder ee Mareykanka ah magaciisa waxa la yiraahdaa Swiss Performing Extract. Okay, haddaan warbixinta creamka idin siiyo insha Allah iyo waxaan u jeclaaday inaan idin la wadaago waxa weeyaan guys gaar ahaan xilligan waqtigan imika la gelayo fall seasonka iyo winterka ayuu aad ugu fiican yahay kulaylaha iyo lama marsan karayo xilliyada hawadu aanay qalayl iyo dhaxan badan lahayn kambaniga Estee Lauder horta uma baahna sharaxaad fara badan taariikhdiisu waa la yaqaanaa dhowr iyo 70 sano kambani jiray weeyaan oo 40nadii la bilaabay alaabtii soo saaraan waxaan ku oray dhulka uma dhacdo yacni ka hadal ma laha alaabahoodu waxa way alaabaha adduunka ugu qaalisan guys waayo kambanigu waa kambani hooyo ah oo umbrella ah kulli waad iga maqasheen dadkiinii hore dadka cusub baan la hadlaya kambaniga Estee Lauder waa kambani umbrella ah oo soo saaray kambaniyo fara badan oo kale oo magac samaystay iskood Estee Lauder waxay soo saareen hor waa idinku sheegay kambaniga MAC makeup ka sameeya hooyadiisi waatan iyo ka soo saaro lahaan jiray markii dambe si madax bannaan buu u shaqaystay kambaniga John Malone la yiraahdo isagana waxaan ku oolbalay ka dhacday dadka Soomaaliyeed malaayintooda badan ma yaqaaniin kambaniga Bobbi Brown iyo qaar kale oo fara badan Aveda qaar kale oo fara badan tira ma laha guys okay ay soo saareen marka waxaan ku oori ciyaar ma galan Estee Lauder يعني أنا وحنا هاي تذكر أنا وحكي الاستعمالين كمبني جالسين كحدنا هاي سكين كير كي يقولون كي نقطاني جوا Estee Lauder ويا جايز كان هذا إن شاء الله إذن كورا مور بحنتيسا قرطوا قرروا ده دوين وذا كيسان وشي قالوا بطلق للشركة معها قياستي سوى حوالي 3.4 ounces عاد بقبضنتهاي لعكتي سنة جايز وحوالي 6 $60 أوكي ما شاء الله waxyaabo fara badan oo fiican ayaa laga sameeyay waxa weeye lotionada ama la oran karayo waa very rich in botanical extracts botanical waa waxyaabaha dee baxa ma aragtay udgoone laga soo saaro waxyaabaha udgoonsa flowerada oo kale marka waxyaabo fara badan oo waxyaabaha dabiiciga ah oo maqaarka aad ugu fiican ayaa guys ku jira warbixintiisa iyo feedback dadku ay ka bixiyeen ilaa berigii la soo saaray guys wuxuu la mid yahay serumkii yani wuxuu soo baxay beri hore taariikhdu soo baxay ma soo hubinin waan soo hubin doona markaan arid gareynayaan hoosta idinku soo qori insha Allah meelahana ku soo qori doona sanadku soo baxay beri hore soo baxay guys feedback laga bixin waa 5 stars weeyaan waayahay guys muxuu faa'iido u leeyahay ee uu u fiican yahay hadaba aad wuxuu ugu fiican yahay guys dadka wajigoodu dry yahay dadka wajiga qalalan ma aragteen anu maanta makeup ma marsanay skinkayga maqaarkayga wax makeup ma marsanaa saliidihii un baa ka dhaldhalaalaya weli waa yara kulayl waan soo dhaashtayuun that's it marka waxaan rabay insha Allah markaan marsanayo inaad aan marsado anoo bilaa makeup guys marka waxa weeyaan dry skin wajiga qalalan muxuu u tara wuxuu soo celiyaa miisaankiisii dabiiciga ahaa ee
loogu talagalay oo qalaylkii iyo engegii buu ka saaraya. intaa waxaan raacinaya guys, dadkoo dhan waxaa laga yaabaa inaanu anficin. wax kastoo fiican adduunyada maaha khasab inay ummadda ilaahay oo dhan anfacaan. dadka qaar ayaa ka cabanaya xaalado gaara oo waxaan laga hadlaya hadday doonaan aan iyakii aanu anfacayn. okay, inaku waxaynu la hadlaynaa dadka aan wax dhibaato ah qabin, wax xanuuna aan qabin, wax qayr caadiya aan ka cabanayn. okay, ee qalayl cimiladu keeneen ama maqaarkooda u dhashay dryness aad buu u caawinaya. waad fahamteen? dadka qalayl siyaado oo aan caadi ahayn ka cabanaya ha u tagaan fadlan dermatologist-kooda iyo dhakhtarka maqaar ee meesha degan yihiin insha allah. marka inuu qalaylka ka bi'iyo maqaarka weeye number 1 faa'iidadiisu. maqaarka marka la mariyo wuxuu ka dhigaya maqaarkii jileec khafiif, yani xariira khafiif maaha, xariira markaad taabato naacima. waad garateen? waa waxyaabaha uu ka samaysay naacim buu ka dhigay, waanu qoynayaa. dadka dehydration fara badan maqaarkoodu ka cabanayo, haraad qalayl saa'ida aad buu ugu fiican yahay. maqaarkii wuu qoynayaa, haraadkii buu ka bi'inaya. maasha allah tabaaraka allah. markaa guys insha allah dhaxamaha soo gelaya waqtigan aynu gelayno imika. dadka jooga meel laga helayo, meel kasta waa laga hela guys, maca Kenya, Africa meelo badan baa laga helaa, khaliijka oo dhan iyo carabaha, Yurub oo dhan, North America, Australia, Asia, meelaan laga helin ma jirto. dadka jooga Soomaaliya, Somaliland haddaad rabtaan u baahan tihiin dadka dibadaha jooga fadlan u dirta insha allah. maasha allah tabaaraka allah. warbixintii soo koobani guys waa taa, siduu u eegyahay insha allahna waa idinla wadaagaya. waan idiin sheegay guys waxa weeye waa lotion caddaana. okay, in badanna ugama baahnid because waa biyo cadoo dareeraya. okay, intaa yare aan iminka soo qaaday ayaa iga badan. intaa yar wejigoo dhan haddaan u qabiyo ilaa qoorta, maasha allah tabaaraka allah way gaadhaysaa. urtiisuna aad bay u fiicantay, yani dabiici buu uraya, dhirdhir dabiici oo kale ah maasha allah. so guys waa ka maasha allah. aniga inkastoo maanta aan maqaarkayga uboo qalayl iyo waxba magu ka cabanin, waad arkayseen isagii baaba saliid da'aysa ah. of course xijaab baan xidhanahay, marka aanan xidhnayn si fiican baan u marsanaya. anigu looshinada ama kariimadan caadiga ah indhaha hoostooda in yar intaa hareeraha waa iska gaadhgaadhsiiya. okay guys waa ka waxaad arkaysaan maqaarkii naacim wallahi weeyaan, xariira oo aan haraad iyo qalayl toona ka cabanayn. maasha allah tabaaraka allah. so guys maasha allah, ciddii u baahan anigood ogtihiin waa idinla wadaaga, waa idinkaa dhaxamaha ciddii u diyaar garoobaysa. waayahay, I hope insha allah inaad ka faa'iidaysateen videoga gaaban ee degdega ah ee faa'iidada badan insha allah. cidda isticmaasha waad noo soo sheegi kartaan waxaad kala kulanteen idinku haddii ilaahay ka dhigo. mujtamaceena Soomaalida hadda soo yaro barbaranaya, qof marsan jiray alaabta Lorer wuu jiray, laakiin dadka igu xidhan in yar baan ka maqlay wallahi. qof iyo laba kama badna, haddana 14,000 iyo dheeraad qof ayaa channelka ku jira. okay, waxaan kusoo khatimayay guys codsi ayaan insha allah ka codsanaya dadka halkan soo gaadhay, waa dadka dhamaystay videogii ee weliba guys jecel inay taageeraan. waxaan idinka codsanaya qof kasto 3 qof kusoo casum inaad insha allah kusoo kordhiso channelka. 3 qofna waxaad ku tiraahdaa commentka ku qor inaad aniga xaggayga ka socotid. waad fahamteen? heblaayo ayaan ka socda. okay, qof kasto fadlan xil isku saar 3 qof oo familygaaga iyo asxaabtaada ah inaad share ugu samaysid, aad u sheegtay fadlan kusoo biira channelka. commentkana xaggayga inaad ku socotaan ku qora magacayga si ha ogaato inaan anigu idin soo diray. insha allah waa idinka sugaya, taa aadna waa u mahadsantihiin. khayr baa idin wada rajeynaya. intaynu videoga dambe insha allah ku kulmayno. maca salaama.